dad baa diyaaradaha foobiya ka qaba dad baa maaragtay rasaasada maqlaan foobiya ka qaba dad baa baabuurka socda baska foobiya ka qaba dad ninba foobiya buu leeyahay madaxda dictaatoraduna waxay foobiya ka leeyihiin facebooka wuxuuna maaragtay dhammaantood wax maqlaysa aniga facebook muxuu ka qaaday hoostiisa wuxuu ka leeyahay facebook way haystaa dadku tusaya markaas intaas markaan ka baxnay insha allah arrinta waxaanu imanaynaa Kenya iyo Soomaaliya waxaad ogtihiin dowladda Kenya inay qaadatay qaraar aad u adag oo ah inay cilaaqaadkii u jarto diblomaasiga qaybta koowaad qaybta loo yaqaano qaybta koowaad baa jaris ahaan waa jaris ahaan laakiin waa qaybta koowaad maxaa yeelay marka laba dowladood ay isku dhacaan conflict diblomaasi oo ka dhex dhaco oo problem uu noqdo oo problemkiina khilaaf noqdo oo khilaafkiina lafdi soo dhaafa hadal waraqadii la isku qorayo oo ficil noqdo waxa uu ka bilaabmaa in waraqad dowladdii loo qoro la weydiiyo waxaas dowladdana ay kasoo jawaabto halka hadday ku xalisanto wax siraaca maaha waxaa dhahdaa waa xal guddi ah si jacayl baa loo dhameeyey si walaalin baa loo dhameeyey laakiin hadday arrintu gaadho in safiir bax la dhahdo safiirna loo yeedho waxaa bilaamatay tawatur waxa loo yaqaana diblomaasi waxaa ku dhacay tawatur baa ku dhacay argagax baa yimid labada dowladood way isku dhaceen isku dhaca lama qarin karo dad baa yidhi ma aha isku dhac waa isku dhac weeyaan lianna wuxuu gaadhay marxalada la dhahdo safiirkii Soomaaliya ka bax wadanka oo dalkaagii tag aad amar baa la siiyey aad wadankaagii kii kale waa loogu yeedhay tashi baa loogu yeedhay arrintaasi maaha arrin caadi ah waa arrin gaadhay darajatu tawatur marka waa marxalatu اlأولى fi qatc العلاaqaat maxaa ku xiga markaa marxaladda waxaa ku xiga marxaladda labaad oo ah in la amro shaqaalaha dowladdu inay ka baxaan wadanka marxaladda saddexaad waa maxay waa marxaladda la yidhaahdo in dowlad kale ay Soomaaliya oranayso arrimahayga ii ilaali kiina oranayso arrimahayga ii ilaali marxaladda afraad ee ugu dambayso maxay waa marxaladda haddeeto aanan la isla hadlayn weeyaan oo dagaalkii xaqiiqiga oo bilaabmay weeyaan marka tan imika dhacday laba jaranjaro un baa ka dambaysa jaranjarada saddexaad waa isku dhac weeyaan marka labadaa jaranjarayntiina gaadhin miiska hoostiisa wax badan lagu xaliyaa su-aashu haddaba waxa weeyaan dowladda Kenya tallaabadan ay u arkaysa inay Soomaaliya idbinayso iyadu waxay u arkaysa marka tallaabada qaadayso inay idbinayso khadwa ta'diibiya waxay u arkaysaa Soomaaliya tahay dowlad ay iyadu leedahay maadaama dhammaan dad fara badan oo Soomaaliya afar arrimood ay gacanta kaga haysato kow nin wal oo madaxa oo Soomaaliya deganaan buu ku leeyahay Nairobi labo bayac mushtarka Soomaalida oo dhani waxay ku leeyihiin Nairobi meel ay bayac mushtarka wataan lacagtooda taala saddex 400 iyo in ka badan oo kun oo qof oo Soomaaliya ayaa qaxooti ku ah afar ciidamo xoog badan oo iyadu ay leedahay ayaa ka jooga gudaha Soomaaliya arrimaha waxay u aragtay inay tahay quwad inay siinayso marka waxay u baahan tahay inay Soomaaliya yara idbiso ta'diib iyo u baahan tahay marka saas u fikirtay dowladda Kenya marka tallaabada anu waxaan ku tilmaamay tallaabo siyaasi maaha waa tallaabo uu macallin u qaaday ardaygiisii waa khadwa ta'diibi amba uu aaba u qaaday inankiisii amba inantiisii amba uu qof sareeyo qof hooseeya u qaadayo iyay u aragtay dowladda Kenya laakiin su-aashu waxa weeyaan dowladda Kenya intaanu iman khilaafku intuu leeyahay intaanu iman dowladda Kenya maxay haysataa quwad iyo fursad ay waxa ay rabto ku marsan karto saddex arrimood baa muhiim ah in dowladda Kenya ay haysato arrinta koobaad waxa weeye dowlad xoog badan oo Kenya kula hadasha nidiya isku mid ay yihiin oo awood haysata iyadna awood haysato kala haysata yaa maqan bay isleedahay iyadu maadaama ay awood weyn oo hor joogta ayna jirin taada socon waa waxa ay aaminsan tahay weeye arrinta labaad ay dowladda Kenya ay aaminsan tahay waxa weeye khilaafaadka Soomaalida u dhaxeeyay quwad buu iyada siinaya waxay haysataa dad ay aan oran karno unugyo hurda oo ay dhaqaajin karto oo dowladda Soomaaliya gugujin kara oo waxay Kenya doonaysa ka soo dhabay kara marka unugyadaas oo dhan baan dhaqaajin karaa iyo mise waxay naga faa'iideysaa waxaan u bixin karno الخلافات الصومالية أرنت صدحات الدولة كيني أي أركيسو إني قوة إذا أتريسو وحويان ثروة الصومالية معناها له حولها الصومالية كيني بيالا وحلال أنا بهيبا بكلها يا صوماليا
dhaqaalihii soomaaliya halkan baan ku hayaa, jaadka ay ku mirqaamaana anigaa haya, markaa soomaaliya waxaan doono iyaan ka samayn karaa. saasay aaminsan tahay dowladda Kenya. marka awooddaabay isbidaysaa, sidaabay qaraarkaana u qaadatay adag. laakiin su-aasha waxa weeye, qaraarka ay dowladda Kenya qaadatay muu saxsanaa mise uu qaldanaa markaan ku egno cilmiga iyo qaanuunka diblomaasiyadda? 100% uu qaldanaa. qaladkana waxaa keenaya waxa weeye 2 arrimood. kow, arrinta khilaafka ee Soomaaliya dhex yaalla iyo Kenya maxkamad buu yaalla. maxkamadduna waa maxkamad ay raalli ka noqdeen labada darafba. maxkamadda lahay markay dhammayso, hadday xitaa dhulka la faqo, iminka dhulba lama faqayo saanse, gaasna lama faqayo, batrool lama soo saaro, haddii xataa lasoo saaro gaas iyo batrool iyo macdababa, oo loo xakumo in ay dhulka ay Kenya leedahay, idaa ka faaidaysanaysa. qof kale oo kala faaidaysanayay ma jiro. marka arrintaasi waa arrin muhiima ikhwaani fillah, oo qaladka i tusay. arrinta labaad waxa weeye, inay ka hadasho min calin meel sare, iyada oo 2 arrimood diraase aan ku sameyn oon sheegi doono, way qaldan tahay. inay cilaaqaadka dawliga ah sal uga dhigto waxa loo yaqaano inaan maanta kaa fursad fiicanahay, waa qalad. 2, arrinta labaad waxa weeye, inaynan fahansaneyn shacabka Soomaaligu markay karaamad iyo dan noqoto, karaamadu raaca shacabka Soomaaligu. shacbiga Soomaaliga waa shacbi karaamad leh, sharaf leh, haybad leh, oo min maaragtay gunta Ethiopia, gobolka Soomaalida Ethiopia ilaa iyo Djibouti, ilaa iyo maxaan ku dhahdaa meel kasta uu joogo, Soomaaliya dhexdeeda, Kenya dhexdeeda iswaafaqaya. waad arkayseen dadka la wareysanayay shacbiga Soomaaliyeed ka mid ah ee degan magaalada Nairobi, hadalka ay ku hadlayeen iyo si isku waafaqsanayeen isku mid ilaa in yar mooyaane. marka karaamada insaanka Soomaaliga bay waxba ka gelnayn dowladda Kenya. okay, su-aashan aan imika ka jawaabay waxa weeyaan, qaraarka ay qaateen xukuumadda Soomaaliya isaguna maxaan ku macnaynaa siduu ahaa? inta aan horta qaraarka xukuumadda Soomaaliya ay qaadatay aan ka hadal, dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya maxaa u dhexeeya? anigu waxaan arkaa cilmiga siyaasadda in badan oo wax ka akhriyay, 2 arrimood baa u dhexaysa. arrinta koowaad waxa weeye, dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya waxay ku kala duwan yihiin. dowladda Soomaaliya dowlad la sameeyey maaha. run ahaan gumaysi baa inoo sameeyey dowladda xukuumaddii hore, laakiin maanta dowladda aan samaysanayna annakaas dadka Soomaalida samaysanaya, maaha dowlad loo sameeyey. 2, Soomaalidu maaha dad la isku rakibayo, waa dad isku rakiban oo Ilaahay isku rakibay. waa dad mujtamac waaxida, caqiidadooda, akhlaaqdooda, dhaqankooga, sarwadooda, dareenkooga waa wax qura, meel kastay joogaan. uma baahna in la isku rakibo, way isku rakiban yihiin. laakiin dowladda Kenya markaad ku eegtid cilmiga siyaasadda, waa dowlad wadiifiya, waa dowlad la sameeyey oo reer galbeedku ay samaysteen, gaar ahaan reer Yurubku, gaar ahaan Ingiriisku, oo loo sameeyey masaalix ay ku leeyihiin bariga Afrika inay ilaaliso. waa dowlad wadiifiya, waxa loo yaqaan dowlad wadiifiya weeyaan. function bay leedahay, shaqay leedahay. shaqadaa bay u xil saaran tahay, shaqadaa bay gudanaysaa ay qabsanaysaa. xaakim almatiri ninka dhadee reer Kuweyda kitub buu ka qoray adowla wadiifiya. ninka la dhahdo Cabdulwahab Masiri adowla wadiifiya, hala akhriyo. dowladda shaqo loo sameeyo aan xaqiiqo aan hayn maxay tahay? tani waa kamid ah Kenya ka jirta. marka waa dowlad wadiifad oo shaqay haysaa, shaqo cajiiba iyo Yurub iyo u haysaa reer galbeedka. marka shaqadii baa iminka waxaa ugu biirtay Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa shaqo u dhibay ah. waa inaad ilaalisid inay Soomaaliya batrool laga faqin. arrintaasi waa muhiim, halka damban ka sheegi doonaa. marka farqiga u dhexeeya 2 dowladood waa taa weeye, waa dowlad wadiifiya iyo dowlad xaqiiqiya. Soomaalidu bilaa dowlad weeyaan, laakiin waa dowlad bas mas'ala xaqiiqiya. kuwani dowlad bay haystaan, laakiin ma aha dowlad xaqiiqiya. dad baa waaseen dowlad xaqiiqiya, waa dowlad wadiifiya, waa dowlad shaqad meel kale u haysta, shaqada bayna gudataa. waana og yihiin dadka gudaha ku nool shaqada u gudato iyo say u samayso iyo inta hay-adooda fadhida iyo waxa laga qabto, waxaas waa la og yahay ikhwaani fillah. okay, inta haddaan ka baxno, waxaanu imanaa dowladda Soomaaliya qaraarada ay soo saartay 5 ah maxay yihiin? anigu waxaan ka dhex arkay qaraaradaas 2 arrimood oo iijaabiya positive ah iyo 1 arrimood oo negative ah. 2 arrimood ee positive-ka waxa weeyaan, qaraarka waxaa ku jiray bisayl siyaasadeed. qaraaradan waxaa ku jiray
bisayl siyaasadeed, waxayna u hadleen si bisil, waxayna uga jawaabeen si bisil, waxayna usoo bandhigeen si bisil. Marka maxaa ku jira nudjun siyaasiyun. waa hadal aan markaan dhan walba ka akhriyay qaraarka aan eegay u bandhigay waxa loo yaqaano qawaaniinta caalamiga diblomaasiyadda, waxaan ka arkay inuu yahay qaraar bisil. arinta labaad ee qaraarka ku jira muxuu ahaa, waxaa ku jira tawaazun baa ku jira. waa qaraar isdheelitiraya. wuxuu isku dheelitirayaa dhinaca dowladda kenyana xaqigiina uu siiyey, xaqii soomaalida uu ka soo qaaday, cilaaqaadka kale ee geeskao dhanna ishuu ku hayay, ka kasii weynna ishuu ku hayay, ka caalamigana ishuu ku hayay, wuxuuna isha ku hayay karaamaha shacbiga soomaaliga iyo siyaadada ummadda soomaaliyeed ee dhulkooda ka talinayaan. waxaasoo dhan si dheeli tiran buu qaraarku uga hadlay. marka maxaan ku idhi, qaraarka labada arrimood waa positive, shanta markaas ku akridu waa sidaa. laakiin arinta salbigii maxay ahayd, lalama hadal dowladda Kenya ee waxaa lala hadlay caalamka lala hadlay. si aan weli nahay ubad la korinayo noo soo gurmada waa nala soo weeraray baa jirtay in dowladda Kenya siday noola hadashay ay Soomaali ula hadashay ay madaxweynaha iyadna noola hadlay ahayd oo kelmad u qalanta oo iyadna tawaazunkana ka baxayn biseelkana ka baxayn la yiraahdo iyo ahayd. intaasina wuxuu ahaa waxa keenay inay dowladdu ay saawaasho. marka dowladda Soomaaliya waxayna leedahay saddex arrimood oo fursado ah oo ay ka faa'iideysatay si ay qaraarka u soo saarto. kow, marka koobaad waa maxkamadda caalamiga. qadiyadeedu waxay taalaa Soomaaliya maxkamad, waxayna sheegtay inay kalsooni weyn ku hayso maxkamadda. idan confiance-ka, siqada, kalsoonida waxay siisay quwad bay siisay xukuumadda Soomaaliya. arinta labaad, midnimada shacbiga Soomaaligu uu la daba joogsaday dowladda Soomaalida ee dadkoo dhan ay yidhaahdeen si fiican uga jawaab, taasina waxay siisay awood. weliba siyaasiyiintii xataa maanta bisil bay muujiyeen, mucaaradka ahaa si mida ayay wada hadleen. arinta saddexaad ee Soomaalida siisay awoodda qaraarkan ay ka soo qaateen waxa weeye waxa aan ku tilmaamay dowlad wada shaqaysa oon kala shaqayn. xukuumadda Soomaaliya maanta xukuumadeeda waxay ka duwan tahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha lama kala xadi karayo iyo baarlamankaba, waa la wada shaqaynaya, meel laga gala la waayo saqaraad. marka taasi waxay keentay inay qaraar mida ay ka soo baxdo dowladda Soomaalida oo wixii awal laga faa'iideysanayay biyaha waxaa laga faa'iideysaa marka biyaha maaragtay carabta waxa tirahdaa alma al-akr, biyaha la dhoobeeyay dhooqada laga buuxiyey ayaa laga dhex ugaarsadaa, laakiin biyaha waa saafi, waa la soo arkaya si fiican baa looga baxay. okay, marka xukuumadda Soomaaliya arintaas ay soo saarteena saas uu ahaa. marka waxaan kaga baxaya anigu marka kelmadeeda insha allahu tacaala, aniga oo marka koobaad kule tahaniyad u diray xukuumadda Soomaaliya oo kule tallaabada qaadeen waa tallaabo qurux badan oo wanaagsan, halkaa kaga haya horena u socda. mid baan inaan ilaawo aan jeclayn waxyaalada gargaari xukuumadda Soomaaliya waxaa kamid ah waa madax inta ugu fara badan jaadka cunin. arrintaas waa muhiim jiddan. waa madax soo jeeda, ma mirqaansano, iyakoo mirqaansan, iyakoo sakhraansan, iyakoo wareersan qaraar ma qaataan, iyakoo soo jeeda. habeen iyo dharaar bay shirayeen si ay decision u qaataan. miisas bay dul fadhiyeen, majlis lama fadhin, qaaci lama saaran, gogol lama dul fadhin, majlis baa la fadhiyay. waxyaalada majliska marka laga kacay miiska la fadhiisto ee dharka la soo xidhee, buugaantaagan la soo dhigtee, qalin iyo waraq la isdul dhigee, computerka la furee, adduunka la akhriya, wax walba la arko, runtaa la arkaya. marka taasina way gargaartay dhalinyaronimada, aqoonta, adduunka laga faa'iideystay, cilmiga la leeyahay, waqtiga cabsida waa la dhaafaa. marka taasina waxay ahayd waxyaalada keenay inuu qaraar ku aado qaraar bisil. marka ikhwaani fillah, waxaan oran lahaa walaalaha Soomaalidu maanta arinta la yidhaahdo dhul baaba Soomaalida ka maqan oo Kenya ku maqan, dhul baa Soomaalida ka maqan oo Ethiopia ku maqan, dhul baa maqanee dhul la soo celiyaa la rabee dhul laga tanaasulo ma jiraba. intan la helay alxamdulilah lagama tanaasulayo. Soomaali baa le, Soomaali baa le, anna kaale haddaanu rejibut baan mar Soomaaliya anna kaale, Soomaali baa le. ogolaan mayna hal mitir cilmiga badda, qaanuunka baddaa sheegaya intee bay Soomaalidu leedahay, intee Kenya leedahay, wax qoran inta kilomitr amba inta mayl ummad walba ay leedahay si loo qiyaaso, waa wax dhigan. waxaana ku iminkaan samaystirayna maaha, wax jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ay qortay, xeerka maaragtay qaanuunka badaha lagu qoray, qaanuunka xuduudaha lagu qoray, ka maaragtay wax walba waa wax qoran.
waxaa qoran iyadoo la raacayo yaa lasoo saari doonaa badan iyaa leh soomaaliya leh mise kenya leh. waxaan idin rajeynaya insha allahu tacaala sidaa iyo nooli kulantay iyo nabadgelyo iyo mar dambe oon xiisa loos arki doono. dhammaantiin waan salaamaya waan idin duceynayaa. assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.